munaasabad lagu taageerayay musharax Cabdirashiid Abuukar Cabdi oo u sharaxan golaha deegaanka ee magaalada Nudiisa ayaa ka dhacday dalka Denmark sida warkaan inoogu soo diray Axmed Yaasiin Ismaan. munaasabad lagu taageerayay musharax Cabdirashiid Abuukar Cabdi kana tirsan xisbiga Alternative isla markaasna u sharaxan golaha deegaanka magaalada Nudiisa ayaa ka dhacday magaaladaasi. munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin, aqoon-yahano, abwaano iyo gudoomiyaasha jaaliyadaha Soomaaliyeed. waxaan ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Rochard Mathiasen oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Denmark ee xisbiga Alternative. wuxuuna sheegay taariikhdii iyo halgankii loo soo maray xisbiyada, isla markaasna waxaa muhiim ah ayuu yiri inuu qofka ka mid noqdo xisbi si uu u ilaaliyo xuquuqda dadka uu ka soo jeedo. sidoo kale dadkii halkaasi ka hadlay ayaa waxay taageero buuxda u muujiyeen musharax Cabdirashiid Abuukar Cabdi. musharax mudane Cabdirashiid Abuukar Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyntii wuxuu tacsi u diray ehladii dadkii uga dhintay qariixii Soobe, wuxuuna sheegay in meel looga soo wada jeesto argagixisada waana iskugu mid ayuu yiri dowladda iyo shacab. waxa kale oo uu sheegay inuu markaas la tashanayo ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna si kooban uga sheekeeyay taariikhda xisbiga uu ka tirsan yahay ee Alternative. De blev så fanget af den danske stat i Karibien, i Dansk Vestindien, og blev sejlet til Danmark for at skulle henrettes. sanadihii u dambeeyay ordnada socialkan u codeynay, laakiin weligay uma codeynaya socialka inta siyaasadda ay hadda ku socdaan waddankan wax xaquuqo iga maqan uusan ugu lahayn, laakiin xaquuqo badan boo iga maqan markaan inta soo degay Cabdirashiid Barak. laakiin qofku inuu han yeesho oo isnaado halka aad taagan tahay horuga soco, wadada yarina wax la yahay wadada weyn bay kugu ridaa. ummaduna ay ka wada markhaati kacaysaa inaad wanaag, walaalnimo, Soomaalinimo, eexla'aan, sinaan intaba aad ugu adeegtay dadka Soomaaliyeed ee odansa degan. Cabdirashiid waraaqda u geysano wax alla waxaan u geysano Cabdirashiid waa noo qabtaa. Soomaalina way og tahay, nin kasta waa ogsoon yahay Cabdirashiid wuxuu qabtay. marka nin kastaba iyo runta ka hadlo. Cabdirashiid meesha waa soo fariistay ayagu yiri iyo raba wala qaar kamid ah waa is yaqaaneenba waaba la is salaamaba hayba wallahi been inaad ku sheegay kiiska aan hadlin meesha lagu xiray been inaad idin sheegay. dadka sida caadiga waxay yiraahdaan waad mahadsan tahay. anaga markaan xamar joognay markii qofku yiraahdo waa mahadsan tahay yani ma dhihi jirin yani adaa mudan yani waxaan dhihi jirnay waa isku leenahay. أنا أريد أو استعماله عبدالرشيدنا مركب واحد كلام إلها ما كان واسكولين عبدالرشيد معناه واحد تاسك وضع ونصيب درو هدي ميزان ونجرين ضد كاسين كدفاعيو ضد كاس فرنتو الشيء waxay noqonaysaa oo kale wixii lagu yaqaanay oo scriptiyaashii uu Roger sheegay oo kale waa Soomaali waa wuxuudii ma hadlaan wax difaacaya male wax u hadla male maxaa la Soomaaliga cidna uma maqnaceelna. doorashooyinka golayaasha deegaanka waddankani Denmark waxay dhacaysaa 21 November ee sanadka 2017. munaasabadaasna waxay ku soo dhamaatay jawi farxad leh. Axmed Yaasiin Ismaan, Universal TV, magaalada Odense, Denmark.